بسم الله الرحمن الرحيم waxaan bilaabaynaa cashirkeenii afraad kuna saabsanaa computer basic qeybaha hoose ee computerka ayaan baranaynay waa course cusub uu ahaa oo A pluska ah marka waxaan soo qaadanay saddex cashir ayaan hor usoo qaadan kan waa kii afraad waaye waxaana dhahnay waa free waa bilaash waayaan dhahnay coursekan waxaana maaragtay aad ka daawan kartaa ama aad kala socon kartaa boggeena aan ku leenahay youtube-ka ama aan ku leenahay tiktok-ga so marka labadaas meelba waa ka daawan kartaa waa free totally qof walbo oo computer rabo inuu barto diyaar waaye wuu maaragtay wuu baran karaa wuuna maaragtay casharo wuu ka qaadan karaa cashirkan waa buug ayaan maaragtay ayaan daabacay buuggaas ayuu maaragtay ayuu ku saabsan yahay marka qofkii buugga rabana wuu soo codsan karaa oo maaragtay wuu soo codsan karaa wuu soo dalban karaa qofkii Soomaaliya joogo wuu soo codsan karaa lambarkeyga maaragtay shaashada ku qoran ayuu iga soo codsan karaa waa loo geynayaa marka saddex cashar ayaan soo qaadanay kan waa kii afraad kan maanta aan qaadanayna waxaa waaye waxaa la yidhahdaa external devices ayaa jira computerka markii waxaan soo qaadanay system case-kii waxaan soo qaadanay displaygii iyo waxaan soo qaadanay keyboardkii mouse-kii intaas computerka wuu ku shaqeynayaa intaas waa inta uu ku shaqey karo inta ugu yar uu ku shaqey karo waa laakiin waxaa jira device kale oo maaragtay dheeraad looga dhigi karo oo lagu dari karo oo maaragtay oo isticmaalkiisa loo baahan yahay isticmaalkooda loo baahan yahay haddii loo baahdo lacalla waxaa kamid ah marka printerka oo kale haddii aan u baahno waxaan ku dari karnaa systemka ayaan ku dari karnaa waxaan kaloo ku dari karnaa speakerska sameecadaha waa ku dari karnaa waxaan kaloo ku dari karnaa webcamka kamerada waa ku dari karnaa USB-ga oo storage-ka ah oo waxaa rabta aad ku save garaysan kartid isagana waan ku dari karnaa waxyaabaha dheeraadka ah oo lagu dari karo macnaha wuxuu leeyahay computerka waxaa lagu sameyn karaa enhance ayaa lagu sameyn karaa waa la ballaari karaa oo la weyni karaa so marka waxyaaba badan ayaa ku dari kartaa waxaa kaloo ku dari kartaa inta aan lagu soo qorin mic-ga oo kale lagu hadlaayo kale microphone-ka lagu hadlaayo waa lagu dari karaa iyo waxyaabo kale ayaa lagu dari karaa external hard drive oo kale hard drive externalka oo banaanka ka galayo kale haddii midka gudaha uu kaa buuxsamo kale waxaa soo gadanaysaa hard drive oo external ah oo banaanka ah ka gelinaysid si aa maaragtay datadaada ama xogtaada aa ugu save garaysato haddii maaragtay kii gudaha uu kugu yaraado so marka maanta waxaan baranayna waxay tahay external maaragtay devices ayaan baranayna oo computerka lagu dari karo marka ayaga naftigooda waxay kala yihiin input devices and output devices ayay noqonayaan qaarkood waxay noo noqonayaan output devices hore waxaan usoo qaadanay input devices oo ahaa keyboardkii iyo mouse-kii laakiin kuwan hadda aan qaadan doono qaarkood ayaa waxay noo noqon doonaan output devices ayay noo noqon doonaan so marka intaas uu rabaa in cashirka inuu noo sheego waxaan ku darsan karnaa printerka waa ku darsan karnaa computerkii speakeradii sameecadaha webcamkii oo kamerada ah iyo USB intaas macnaha dheeraad ayaan ku dhigi karnaa oo haddii aan u baahno isticmaalkooda waa maaragtay as a technician adiga waxaa lagaa rabaa in aad fahamsan tahay in computerkaagii aad ballaaran karto oo waxyaabo dheeraad aad ku darsan karto marka intaasuu rabaa inuu noo sheego cashirkan wuxuu ku leeyahay marka you can enhance wuxuu ka wadaa waa ballaari kartaa oo waa enhance ayaa ku samayn kartaa oo waa weyney kartaa waxyaabo dheeraad ayaa ku darsan kartaa the functionality shaqada of practically any personal computer macnaha computer walbo waxaa ku darsan kartaa waxyaabo dheeraad ah oo shaqo kuu qabanayo in ay shaqo kuu qabtaan maaragtay haddii aad rabto oo maaragtay sida printerka oo kale haddaan rabo waraaq inaan daawacdo oo aan rabo haddaan printer haysan macnaha waraaq ma daawacan karo waa inaan printer helaa so marka functionality wuxuu ka wadaa shaqada oo markaas u baahan tahay oo dheeraadka ah ayaa ku darsan kartaa marka computerka waxaa ku darsan kartaa waxyaabo dheeraad speakerka haddaan rabo kale samacadda inaan maqlo kale waxaan u baahanahay speaker ayaan u baahanahay webcamka haddaan rabo inaan isticmaalo kale webcam inaan qof la hadlo kale oo skype oo kale haddaan rabo inaan qof kala hadlo kale webcam ayaan u baahanahay si uu ii arko asna aan u arko webcam ayaan u baahanahay waa ku darsan kartaa so marka wuxuu ku leeyahay marka the functionality wuxuu ku leeyahay you can enhance waa waxyaaba ballaari kartaa the functionality shaqada of the practically any personal computer any computer maaragtay si practical ah ayaa maaragtay shaqada uu ku qabanayo ama maaragtay ayaad enhance ugu samayn kartaa oo u ballaari kartaa computerka markaasuu ku leeyahay marka saan u ballaari karnaa waxyaaba dheeraad ugu darsan karnaa by connecting ku leeyahay different types
of peripheral devices adigoo ku xiraayo noocyo kala duwan fiiriya different types noocyo kala duwan of peripheral device peripheral external device way ka wadaa external device dheeraad ah aad ku darsan kartaa oo ayaad ku darsan kartaa macnaha adoo ku naqtid ku sameynaayo oo maaragtay computerkii gadaalka gelinayo oo maaragtay fiilo ayuu wataa mid walba fiilo ayuu wataa hadda sidoo kale muxuu ahaa printerka oo kale USB cable ayuu wataa oo fiilo USB ayuu wataa speakerka wuxuu wataa asagana maaragtay fiilooyin ayuu wataa webcamka USB ayuu wataa soo marka intee ku xiraysaa marka intee connected ku sameynaysaa to the system unit aan soo qaadano weynaa ayaa gadaalka gelinaysaa also colored waxaa lagu magacaabaa profileka kuu rabaa inuu kuu sheego uu kuu sii sharaxuu rabaa wuxuu ku leeyahay waxaa kaloo lagu magacaabi karaa external devices external iyo internal aa jiro internal waa gudaha externalna waa banaanka soo marka externalka waxyaabaha banaanka kasoo galaya ayuu ka wadaa external deviceska devices banaanka kasoo galaya sida printerka oo kale speakerka oo kale webcamka oo kale USB oo kale banaanka ayay kaga soo xirmayaan system caseka system unitka so marka peripheral deviceska external deviceskaas oo dheeraadka ah oo banaanka ka soo galayo can provide waxay na siinayaan alternative input alternative macnaha meel kale ayay wax naga siinayaan alternativeka waxaa laga wadaa macnaha dhinac kale ayay wax naga siinayaan dhinac kale ayay wax naga siinayaan alternative input or output methods method oo maaragtay oo dhinaca kale ah ayayna siinaa shaqo oo dhinaca kale ah ayay noo qabanaya oo computerka maaragtay oo aan ahayn laakiin oo banaanka ka ah ayay noo qabanaya sida printerka oo kale waraaqa inaan ka daabacno oo aan maaragtay aan hadhoodii haddaan u baahno aan ka daabacno oo aan isticmaalno marka wuxuu ku leeyahay or additional data storage ama data storage haddaan u baahno kale xog inaan save garaysano oo kale ama data inaan save garaysano information inaan save garaysano oo maaragtay computerkii hard drive-kii noogu jiray oo datada aan ku save garay hadduu naga buuxsamo kale waxaan samayn karnaa enhance ayaan samayn karnaa waxaan samayn karnaa in aan USB soo gadano oo maaragtay oo intaasoo gigabyte ah oo xogtiina aan ku keensano macnaha additional data storage saas ayuu ka wadaa additional data storage wuxuu ka wadaa storage dheeraad ah inaan soo gadano ayaan computerka ku xirnaa karnaa wuxuu ka wadaa USB-ga ayuu ka wadaa you can connect the peripheral devices to the system unit wuxuu ku leeyahay peripheralka external deviceskan oo kuwan ah waxay ku xirmayaan to the system unitka ay ku xirmayaan via cable ahaana ugu xirmayaan a wireless connection ugu xirmayaan laba siyaabood baa lagu xiri karaa printerka oo kale as wireless ahaan ugu xiri kartaa fiilana waa ugu xiri kartaa saasuu rabaa inuu kuu sheego macnaha kuwan hadda webcamkan printerkii waxaa loogu xiri karaa ku leeyahay cablena waa loogu xiri karaa wireless ahaanna waa lagu xiri karaa some devices have their own power source qaarkood marka waxay leeyihiin qaarkoodna sida USB-gan oo kale markaa geliso asaga power ma lahan dab ma lahan markaa geliso ayuu dabka wuxuu ka helayaa computerka qaarkoodna ayagaa dabka wato sida haddoo kale muxuu ahaa printerka oo kale asaga wuxuu wataa power sourcekiisa asaa iskale power sourceka waxaa laga wadaa dabkiisa qaarkood dabkooda ayaga iskale qaarna dabka waxay ka helaan computerka macnaha external device-ka qaarkood waxay yihiin dabka ayaga wata oo batteriya wataan qaarkoodna markii computerka la geliyo dabka waxay ka helayaan computerka intaasuu rabaa inuu kuu sheego while other draw power from the system while other draws kuwa kalena waxay ka helayaan from the system computerka ayay ka helayaan qaarna ayaga macnaha dabka wata qaarna systemka ayay ka helayaan oo system unitkii ayaa common wuxuu ku leeyahay marka common examples of a peripheral deviceska macnaha peripheral external deviceska waxaa ka mid ah included microphoneka ayaa kale microphoneska lagu hadlaayo waxaa waaye waa peripheral external device waaye waxaa ka mid ah camera ayaa ka mid ah speakerska ayaa ka mid ah scannerka ayaa ka mid ah scannerka waa taqaanaa umayna markaa rabto document inaad maaragtay computerka gashato waraaq banaanka aad haysato waraaq banaanka haysataa oo soo print garaysatay haddana waxaa rabtaa in qof aad u dirto documentigaas maxaad ku sameynaysaa scan ayaa ku sameynaysaa scanka ayaa gelinaysaa kadib waxaad maaragtay computerka ayuu kuu galayaa kadib qofka markaas aad rabto ayaa u diraysaa marka scanka kaas ayuu ka wadaa waxaa ka mid ah printerska ayaa ka mid ah an external device dheeraadka lah
ayaa jiro ayuu ku leeyahay. So marka of these devices speakerska fiiriya kuwan oo maaragtay deviceyadan wuxuu ku leeyahay speakerska sida speakerska, printerka, speakerka iyo printerka are output devices fiiriya ayaga ayuu wuxuu kaaga dhigayaa kuwana inay yihiin output device iyo kuwana inay yihiin input device. Marka wuxuu ku leeyahay speakerka iyo printerka maadaama ay waxay noo soo saarayaan printerka waraaq ayuu noo soo daabacaya speakerkana codka banaanka ayuu noogu soo saaraya maxay noo noqonayaan marka waxay noo noqonayaan input device ayay noo noqonayaan input device ayay noo noqonayaan input devices ayay noqonayaan. Marka microphone-ka iyo kamirada fiiriya iyo scannerkana maxay noo noqonayaan intaasna codkii macnaha waa gelinaysaa microphone-ka macnaha codkii gudaha ayaad u gelinaysaa kamiradan maxay tahay wejigaaga gudaha ayay gelay ama haddaa rabto inaad iska duubto kamera gudaha ayay gelaysaa scannerkana maaragtay waraaqdi ayaa gudaha gelinaysaa. So marka saddexdaa maxay noo noqonayaan input device ayay noo noqonayaan input devices ayay noo noqonayaan. Marka speakerka iyo printerka maxay noo noqdeen output devices macnaha output device waaye maaragtay speakerka iyo printerka. Microphone-ka iyo kamirada iyo scannerkana maxay noo noqdeen input devices ujeedaa. So marka external deviceska input output devices marka waxyaabaha externalka oo peripheralka oo dheeraadka noo ah kuwan qaarkoodna waxay noo noqonayaan intaas uu raba inuu kuu sheego input devices qaarkoodna waxay noo noqonayaan output devices. Input devices maxaa noo noqonaya keyboardkii iyo mousekii iyo microphone-kii iyo kamirada iyo scannerka waxay noo noqdeen input device ayay noo noqdeen. Speakerka oo codka banaanka noogu soo saaraya iyo printerkana muxuu noo noqday output devices. So marka saas inaan u kala fahanno waaye marka cashirka oo maaragtay theory-ga ahaa intaas ayaan kusoo koobaynaa laakiin hadda waxaan qaadanaynaa laabka ayaan qaadanaynaa laabka marka maanta waxaan qaadanaynaa Windows update-ka ayaan qaadanaya maxaa la dhahaa update inaad wax cusub hesho ayaa waxaa la yidhahdaa update. Qofkan update waa marka lagu dhahayo waxaa waaye wax cusub ayuu la yimid camal waa. So marka waxaan sameynaynaa marka Windows update computerkan wuxuu leeyahay update ayuu leeyahay update-kaas maxaa waaye waxyaabo dheeraad oo cusub oo computerka uu u baahan yahay ayaa maaragtay ayuu helayaa. So marka Windows update-ka maxaa waaye Microsoft oo soo saartay Windows-ka ayaa waxay sameeyaan waxyaabo dheeraad waxyaabo cusub ayay kusoo daraan maalin walba waxay wax kusoo daraan waxyaabo cusub systemka Windows-kooda. So Windows sida way badan yihiin Windows 11 hadda la maraya Windows 10 ayaa jira marka marketka adduunka waxaa la isticmaalaa inta badan dadka inta badan waxay isticmaalaan caalamka meel walba Windows-ka ayaa la isticmaalaa operating system kale la isticmaalo way jiraan laakiin dadka inta badan waxay isticmaalaan kambaniyada waaweyn oo caalamka dowladaha kulli inta badan waxay isticmaalaan Windows-ka ayay isticmaalaan. So marka cilado ayaa ku yimaada oo maalin walba waxaa la sameeyaa attacking ayaa lagu sameeyaa oo hacking ayaa lagu sameeyaayo maalin walba waxaa lagu sameeyaa virus iyo waxyaabo inta la abuuro ayaa la soo diraa. So marka ayagana waxay sameeyaan difaac ayay ka galaan Microsoft waxay sameeyaan waxyaabo ka hortag ah wixii soo baxaba wax ka hortaga ayay soo sameeyaan. So marka computerkaaga waa inuu up to date yahay hadduusan up to date ahayn computerkaaga virus ayaa galaya. So marka every day you have to do up to date and update inaad sameysid waaye every day waa inaad update sameysid haddii kale computerkaaga risk ayuu ku jiraa. So marka waxaan sameynaa marka si update u sameysanaa marka pointigana wuxuu yahay sin update ku sameysana. So marka update waan u baahannahay si update marka update markaa sameynaysid waxaad u baahan tahay internet ayaa u baahan tahay waa inaad internet haysataa. Marka wuxuu leeyahay update san u sameysto number 1 waxaa sameysaa go to settings and click update and security. Settings xagee laga tagaa start ayaan dhahaynaa settings waa kan geedkaas motorka camal kuusan ayaa settings uu ku qoran yahay xataa settings click siinayna kadib wuxuuna yiri update and security tag aan yiri ujeedaa click ayaan siinayna update and security ayaan click siinay uu wadaa waa kaasa. So marka haddana muxuuna yiri bal aan fiirina bal wuxuu ku leeyahay marka number 2 click Windows update click see uu yiri haddana waxaan sameynaynaa number 2 wuxuu yiri Windows update click see and check update uu leeyahay is any update available. So marka haddaan fiirino Windows update waa kana Windows update aan click siinay wuxuu ku leeyahay marka
fiiri windows update wuxuu ku leeyahay update is available. So marka aniga update ayaa iga maqan ujeedaa you miss fiiriya your device is missing important security and quality fixed ujeeda waxaa iga maqan waxyaabo oo security-ga ku saabsan oo aniga ii fiican oo maaragtay haddii aan update aan sameeyo oo computerkeyga waxyaabo badan oo hacking ama virus ugu dhici lahaa iga difaaci lahaa. So marka wuxuu leeyahay marka waa inaad download sameysaa fiiri download waa inaad sameysaa buu leeyahay. So marka haddii aan cashirka ku noqono okay wuxuu leeyahay marka if update available fiiriya if update available download and install haddii update uu available ku yahay uu ku yaalo download samey and install ayuu leeyahay fiiri. So marka waxaan sameyneynaa inaan download sameyno oo install gareyno maxaa leenahay marka download ayaan leenahay download ayaan leenahay it's too slow stack ayuu noqday it's too slow and so marka wuxuu ku leeyahay if update available then download and install waa downloadka waa sameynay installkii ayuu hadda wadaa uu install gareynayaa when download and when markaa soo download gareysid oo install aad sameysid number 5 muxuu leeyahay when you finish downloadku ka wada wuxuu leeyahay is your computer up to date computerkaaga up to date miyaa haddii aad downloadkii dhameysay ayuu leeyahay kaan fiirina marka security وكاسة مجدة download and install مجدة في ليه install ayaan leenahay marka waqti badan ayuu qaadanaya marka waqti badan hadduu qaato waqti badan ayuu naga qaadanaya aniga waqti ayaa naga lumaayo marka waxaan sameyneynaa mujada wuxuu leeyahay download starting wuxuu leeyahay 0% ayuu maraya mujada download ayuu noo sameynaa marka waqti badan waxyaabo badan ayuu soo dejinaya waqti badan ayuu qaadaa saasaa marka downloadka loo sameystaa haddii aad u baahan tahay computerkaaga inuu up to date ku noqdo saas ayaa update loo sameystaa cashirkeenina maanta intaas ayaan kusoo koobeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu